Sargaal ka mid ah ciidamada gaarka ah ee Mareykanka oo diinta Islaamka qaatay. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Si aan ugu daawadno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanidin badan. Sargaal ka mid ah amaba ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa waxa uu qaatay diinta Islaamka kadib markii uu arrimo badan arkay. Sargaalkan ayaa waxa uu ciidamada Mareykanka gaar ahaan kuwa gaarka ah ee loo yaqaan Marines-ka uu ka mid ahaa muddo 29 sano ah. Waxa uuna ka soo howlgalay dalal badan oo caalamka ah, balse waxa uu inta badan ka howlgalayay wadamada Islaamka ee Mareykanku ka howlgalo. Waxa uuna inta badan waqtigiisa ku qaatay wadanka Afghanistan. Sargaalkan ayaa waxa uu 2003 tagay dalka Ciraaq si uu uga qayb qaato dhismayaal markaasi sida uu sheegay lagu caawinayay dadka Ciraaq sida iskuulo, masaajido iyo goobo kale oo muhiim u ahaa dadka reer Ciraaq. Sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in marar badan uu ka badbaaday qaraxyo lala eegtay Ilaahayna uu ka ilaaliyay. Markii uu arkay dhibaatooyinkii iyo dilal badan uu ka badbaaday isla markaana uu dib ugu noqday dalka Mareykanka ayaa waxa uu isweydiiyay diinta Islaamku maxay tahay isagoo baaritaan badan ku sameeyay sidaasina ku ogaaday in uu baadiyeysnaa. Isagoo ay la taliyeen walaalo badan oo muslimiin ah, su'aalo badan uu qabayna laga jaahil bixiyay. Waxa uu sheegay in muddo dheer uu daraaso ku sameynayay diinta Islaamka tan iyo markii uu ku sugnaa wadamada Ciraaq iyo Afghanistan oo xilligaasi ahaa sargaal ka tirsan ciidamada Mareykanka, halkaasina uu ka howlgalayay balse markaasi uu Islaamka nabcaa. Muddana uu daraaso ku sameeyay markii uu arkay in dad badan oo Islaam ah markaasi uu saaxiib la noqday. Dhinaca kale, saaxiibadiisa Islaamka ah iyo culimadii uu su'aalaha weydiinayay ayaa waxa ay kula taliyeen in diinta Islaamka uu qaato, aakhiro iyo adduunba ay anfacayso diinta Islaamku. Waxa uuna go'aansaday in uu masjidka yimaado si uu u islaamo. Isagoo u yimid imaamkii masjidka, waxaana loo ballan qaaday in ashaatinka loo qaban doono, iyadoo markii ay jamaacadii masjidka ay soo xaadireen hortooda uu imaamku ugu qabtay ashaatinka sargaalkan ka tirsanaa ciidamada Mareykanka, waxaana loo ballan qaaday in la bari doono diinta Islaamka. Culimadii, imaamkii iyo sidoo kale jamaacada masjidka ku tagneed ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen sargaalkan ka midka ahaa ciidamada Mareykanka ee haatan qaatay diinta Islaamka, iyagoo si weyn u soo dhaweeyay.